magacayga horta ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Cali Muuse waxaan ka mid ahay ciidamada hadda dhibaatada baan ku hayay shacabka oo niyo booliska in muddo 2 sano kan ka mid ahay marka ugu horeyda waxaan ka mid ahay ciidankii dawladda deegaanka dalka laga qaaday deegaanka hadda aan ku noolahay aan joogo ciidankii laga qaaday kan ka mid ahay oo lagu yiri dadka shacabka iyo dalka iyo diinta baad u shaqaynaysaa kan ka mid ahay markii ugu horeydana waxaan tababar ka galnay xerada ciidanka niyo booliska gaarka ah lagu tababaray Garabcas kadib deegaanna kala duwan baan ka soo shaqeeyay 2 sano oo ay ka mid yihiin sida Nagab oo kale Goday oo kale baan ka soo shaqeeyay ciidamada niyo booliska qodobada 2 qodob baan kaga soo tagay anigu dhibaato qodobka koobaad waxa weeye mid annaga nagu haysatay oo maadaama anagu aan nahay dad islaam diinta islaamka ku dhaqmo kuna dhashay qodobadaas waxa kamid ah ayadoo nala ogolayn wax la yiraahdo salaad ayadoo nala ogolayn qodobadan kaga soo tagay kamid waxa kale oo kamid ah ayadoo markii xoolaha la qalanayo kale aan magaca la yiraahdo Itoobiya ha xorowdo lagu bireeyo midna Itoobiya ha midowdo baa lagu bireeyaa qodobadan kaga soo tagay taana waa kamid deegaanka aan joogayna dhibaatooyin fara badan oo ka geysteen oo xasuuq ah oo dadka shacabka odayaasha waayeelka loo geysan jiray way ka jireen waan kaga soo tagay dhibaatooyinkan kaga soo tagay qodobka koowaad taa waa taa markii aan soo tagnay aniga waxa laga soo qaaday email waxaan la soo qaaday halkaan xududka la keenay xududka markii la keenayna dhibaatooyin fara badan way ka geysanayeen oo dadka shacabka loo geysanayay ayadoo shaar loo gashanayo leeyahay waa shabaab waa nabadiid intii aan joognay anagu dhibaatooyin badan aan ku sameynay dadka kuwa la gowracayo caruur kuwa faas lagu dilay guriye la gubay dhibaatooyin fara badan yaan anagu ku arkay oo dadka shacabka loo geysanayo saadarteed maadaama anagu aan arkay wax diinta islaamka ay sheegeen ay yihiin waxaan oo qalada saadarteed qodobadan kaga soo tagay kuwa weeyaan oo la gowracayo ilmo la gowracay dad faas lagu jarjaray kuwa aqalkii guriyihii ay ku jireen lagu gubay oo amar ay ku bixinayaan saraakiisha ciidamada ugu sareeya sida sargaalka ugu sareeya ciidanka hadda meeshan joogo oo hawlgaliyaha guud la yiraahdo ninka la yiraahdo Nustariiq sida ninkaas oo kale saraakiisha kale ka mid yihiin korneelka ciidamada hogaaminaya Sabon Cabdikariim amar cad oo subax waag markuu bari waxa amar cad oo la bixiyay oo ahay inaan naf la arka la dhaafin markii aan arkay dhibaatooyinkaas oo ka hadlay oo wax la dhaafay ma jiraan waan arkay nin weyn mid yar caruur hooyo waayeel gurihiina lagu bayo arihiina la iska qalanay dhibaatooyinkaas markaan arkay anigu waan u adkaysay waay diinta islaamka waxa uga sheegay inaan markaan arkay saadarteed waan iska soo tagay waxaan ka howlgalayay isma dhaqo baladi iyo ilaa 2 bar inta u dhaxeeyay ka howlgalay mayna dareemin markaan ka baxsanay waxa iga baxay maadaama aan nimankii iskaga soo tagay halkaan dadkii deegaanka dad shacab ah oo wanaagsan oo dad islaam ah baan ugu imid oo hadda meeshaan ka soo tagay iyo meeshaan wax la isku keeni karay wax la isku soo dhaweey karaa midna ma ahan marka dhibaatooyinkii hadda lagu haayayna way ka muuqataa dhibaatooyin fara badan waan ugu imid dadka shacabka lagu ku laalaayay ku dhaawac ahay meeshii la keenay soo arkay kuwa waxaan arkay indhaha laga tuuray kuwa waxaan arkay la burbureeyay intaba uu naf xun ay ku jirto isbitaalka yaalo marka dhibaatooyin badan oo awalna horena uga soo cararay haddana ayaan meesha ugu imid ayagu ay geysteen maanta way isla qaateen inaan wax la arka la dhaafo waxaan u cadeynayaa markooda horta adduunka weynuhu wixii qaldan adduunka un baa arka laakiin hay'adaha caalamka Itoobiya waa laga mamnuucay horta sida dawladda deegaanka Soomaaliya cidii qaladka arki lahayd waa laga mamnuucay Itoobiya way diideen waxay u diideen waa inaan dhibaatada shacabka xasuuqa dadka ay ku haydo inaan la ogaanin weey marka adduunweynaha waxaan u sheegayaa iyo caalamka nimankaas dhibaato baan ummadda ku hayaan intaan la soo shaqeynayeen ay ku hayeen gobol kasta gobolada Soomaaliya deegaanka oo dhan way ka wadaan marka adduunweynaha waxaan ugu baaqayaa nimankaas degdeg in ummadda shacabka Soomaalida Itoobiya dawladda deegaanka ku nool in laga soo gaaro baan adduunweynaha ugu baaqay sababaha anigu aan ugu biiray waxay ahayd waxa la yiri waxaan u shaqeeynaa dalka iyo diinta deegaankeena inaan u shaqeyno nabadgelyada sugno cadawga al-shabaabka iyo ubada wixii lamid ah inaan ka ilaalino qodobo noocaas baan ugu galay anigu markii laakiin markaan arkay inay ka bedelan tahay waan iskaga soo tagay anigu oo meesha dadka shacabka lagu xasuuqayo diinano aysan ka jirin dadkiina lagu nabadgelay dad muslim oo hawlgalaya oo dalkooda dhibaatada wixii dhibaatada ka ilaashanayo baa la iga dhigay